commissionow khaladaadka dhacay waxaana soo gaadhaya warkii ugu dambeeyey inaad qirateen. waxaan kaloo idiin sheegayaa anigu gobolka saraar baan joogay, tiradii soo xiroonaysay ee sanaaduuqda 58 sanduuq ee caynaba ama saraar sanduuqii ugu dambeeyey aanu tirino anoo wakiilka ah xisbiga wadani habareyaashii 2 sanduuq oo ka yimi buu mid ahaa. muraaqibiintii markay dhigeen ee gaadhiga laga rogay bay iska tageen. waraaqdii xisbiyada iyo wakiiladu waa kala qaateen, gudoomiyaha goobta iyo 3 xisbi. qaladaadka dhacay ee aan 7 xubnood siinayo ee aan soo gudbiyey ee xisbiga wadani soo gaarsiiyey waxa ka mid oo cadaynaya gudoomiyihii goobta iyada ee 2 sanduuq habareysay mid ka mid ah markii sanduuqa fur la yidhi wuxuu ku dacweeyey waraaqdii oo gacanta uu sidaa ugu hayo la kala qaatay ee koobiyada ahay tiisii 300 oo cod oo u qoran xisbiga wadani 79 waxay u kor qorantay xisbiga kulmiye inay ahayd khalad dhacay oo isagu sameeyey oo 300 oo wadani u qoranna kulmiye leeyahay 79 ka wadani u qoranna kulmiye leeyahay wadani leedahay. arrinka caynkaas baa dhacay. anaa wakiilka ahaa oo tirada u sugayey oo u saxayay oo u saxaxayay xisbiga wadani goobta caynaba ay ku soo xiranayaan 58 sanduuq waa sanduuqii ugu dambeeyey. waxaan ku idhi sidaasuu xalaal ku yahay, sidaasuu ku xidhnaanayaa, sidaasaa la kala qaatay, sidaasaa 4 saxiix iyo 4 shaabadood ku dhaceen, adiguna dembiilaa tahay. maxaad u sugi weynaa hadduu sax yahay intii aan muraaqibiintu kala tegina 3 muraaqib iyo adigu saxaxaye shaabadaa kala qaadan? waxaan ku hadlayaa waa af soomaali, waxaa dhegaysanaya waa shacbiga iyo xukuumadda somalilan wixii ilaahay yaqaan. waxaan fariintaa u gudbinayaa in musuq maasuq weyni dalka ka dhacay waa 7 xubnood ee komishanka ee iminkaanu la hadlaynay. nimanka komishanka markaa sidaa u sugay arrinkaa ee aan idhi waa xalaal, ana nin bedelaya miihi oo ku qoraya 300 xisbiga kulmiye 79 gaana u qoraya wadani ma yihi. ninbaa wakiiliga ahaa, saasay ku qaateen 3 muraaqihii, adna saasaad gudoomiyaha goobta ku qaato goobigaa ku haysataa. halkaa markay maraysay ayaa komishanka xubnaha caynaba bareedheen, waxay idhaahdeen annagaa bedelaynaa. waxa dhacday inay idhaahdeen waanu furaynaa. anigu waan qaatay alaabtayda iyo shaabadahaygii, laima furo baan ku yidhi. waa la furay. waxaa dhacday inay 7 xubnood ee komishanka caynaba tiradii 300 ayd kulmiye u qoreen, 79kiina u qoreen xisbiga wadani. ifidhaniska aanu hayna waddan ka dhacay waa kaa. cid wadani oo la joogtay ma jirto, cid la furtay ma jirto, cid u saxeexday ma jirto. sanaaduuq kale oo badan oo aan dacwadooda soo gudbiyo qabad oo aan qabtay baa ka mid a sanaaduuqda. laakiin kan hortayaday ku weysaysteen oo ku weysa jabeen oo komishankii ku galeen. way soo dhaaftay qoladii maxaa kulmiye iyo muraaqibiintoodii iyo ku shubasho iyo qolihii u ololeynaya xoogga ku ololeynaya ka socday dowladda ee madaxweynuhu uu uga digay inay ololeeyaan ee bareeray ee dalkoo dhan caynaba quramaahayna ka socday ee ka bareeray. arrinkaas ayaan u sheegayaa 7 xubnood sida dalku u weysa jabay ama loo eexday ama corruptionka iyo musuq maasuqa iyo ku shubashadu uga dhacday. kan weyna deydinkaaba qirtay baa layidhi in dee buwaagi ka baxday komishankii oo kuwa lagu soo subda galbeed lagaga shubaya. waxaanu idin leenahay ubad baa ka timaadeen, guryaha ka timaadeen, ilaahay baa leedihiin, waa dhaarateen, waa laydin aaminay. islaam haddaad tihiin oo allihiin alla yahay yaan dumadda aydan ku qaadin khasaare iyo sibil wool. gacantaana waxa ku haysaan xumaan, taana wanaag baa ku haysaan. wanaaggaa taa ku haysaan waxa weeye idinkoo waddankaa wixii la kala helay, wixii xumaaday ee lagu shubtayna qabto oo guba, wixii la kala helayna sideedii u kala tiriya. taasaa ubadkiina iyo cidhibtiina iyo idinku ilaahay iyo aakhiro iyo ifka intaba ku nabadgelaysaan, waddankana ku badbaadaya. taana waxa weeye waxa ku haysaan xumaane. dee haddii ay xataan ama khalada aragtaan qaban weydaan dee waxa weeyaan
waa idinka iyo aqoontiina iyo ilaahayna waa idin daawanaya ummaddana waa idin daawanaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.